Qisooyinka nebiyada waxaa hubaal ah in ay mar waliba tusaale wanaagsan u yihiin nolosheena maanta. Waa dadkii ugu fadliga badnaa intii uu Alle Subxaanahu wa Tacaala abuuray kuwii uu u doortay inay noqdaan kuwo ka sharaf iyo karaamo badan aadanaha intiisa kale, xambaarana fariinta Alle Subxaanahu wa Tacaala ee uu soo diray aadanaha. Haddaba barnaamijkeena bisha Ramadaan ayaynu ku daafuri doonaa qisada Nebi Aadam, inagoo isla eegi doona qaabkii loo abuuray aadanaha iyo sidoo kale noloshii dheerayd ee Nebi Aadam ee ku dhoweyd 1000 sano. Waxaad daawanaysaa barnaamijkeena qisooyinka nebiyada, halka aad ka daawanaysaana waa Sahan Media. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. Soo diray dhulka isaga iyo xaaskiisii oo la oran jiray Xaawa. Nebi Aadam wuxuu ka tirsan yahay 25 nebi ee Quraanka lagu sheegay. Sida ay qabaan culimo badan oo Islaam ah, Nebi Aadam waxa uu noolaa qiyaastii 1000 sano kadib abuuristiisii. Ka sheekaynta qisada Nebi Aadam calayhi salaam waa ka sheekaynta bilowga insaanka, waa aabbaha dadka iyo sidoo kale qofkii ugu horreeyay ee uu Alle u doortay halka ay ka bilaamayso tafiirta aadanaha. Duriyadiisii waxa uu Alle Subxaanahu wa Tacaala ka fadilay noolaha kale oo dhan. Alle weyne markii uu doonay inuu abuuro Aadam, waxa uu malaa'igta u sheegay doonistiisa ah inuu dhulka u yeelo khaliif iyo kuwa dhaxla. Malaa'igta ayaa rabbigooda ku yiri, Rabbiyow, ma waxaa dhulka dhexdiisa ka yeelaysaa kuwa fasahaadiya oo dhiigga daadiya? Malaa'igta oo hadalkooda sii wata ayaana ku yiri Alle Subxaanahu wa Tacaala, annagu waan kuu tasbiixsanaa kuna caabudnaa. Alle Subxaanahu wa Tacaala ayaa u sheegay malaa'igtiisa inuu ogyahay wax aanay ogeyn. Alle ayaana amray mid ka mid ah malaa'igta inuu dhulka u dego kana soo qaado ciidaasi oo ka kooban noocyo kala duwan iyo midabo kala duwan. Intaa kadibna waxaa ciidii lagu daray biyo, wuxuuna noqday dhoobo. Sidaas ayuuna ahaa muddo uu Alle ogyahay tirsigeeda. Rasuulka sallallahu alayhi wasallam xadiis uu Abi Muusa ka soo wariyay ayuu macnihiisu ahaa, Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala Aadam waxa uu ka abuuray qabasho ama tooba uu ka soo qabtay dhulka oo dhan. Markaas ay carruurtii Aadam noocyadii dhulka u ekaadeen. Waxaa ka yimid kii caddaa iyo kii madoobaa, iyo kii intaa u dhaxeeyay, kii xumaa iyo kii fiicnaa, kii fududaa ama furfurnaa iyo kii adkaa ama qallafsanaa. Muddo kadibna waxa uu Alle Subxaanahu wa Tacaala qadaray in uu ruuxda ku afuufo Nebi Aadam. Waxay naftu ka gashay madaxa iyada oo ay ruuxdu hoos u socoto. Markii ay ruuxdu maraysay sanka ayuu Nebi Aadam hindhisay. Malaa'igta oo agtiisa joogtayna waxay ku dhaheen, Aadam, Alle u mahad celi. Wuxuuna yidhi, Aadam, Alle ayaa mahad iska leh. Ilaahayna waxa uu ku yidhi, Eebbaha ku naxariisto. Ruuxdii markii ay sii gaadhay caloosha, isla markiiba waxa uu Aadam doonay inuu qabsado oo uu soo goosto midhaha jannada, iyada oo aysan weli gaadhin ruuxdii jidhkiisa oo dhan. Sidaasi awgeed ayuu Alle u leeyahay dadka waxaa laga abuuray degdeg. Markii Nebi Aadam calayhi salaam ruuxdii ay gaadhay jidhkiisa oo dhan, waxa uu Eebba amray in uu u tago malaa'igta oo uu salaamo. Waxa uu Nebi Aadam ku yidhi, Assalaamu calaykum. Malaa'igtiina way ka qaadeen salaantii, waxa ayna ugu jawaabeen, Wacalayka assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxa uu Eebba ku yidhi Nebi Aadam, taasi waa salaanta adiga iyo ubadkaada. Quraanka Kariimka ah waxaa ku sugan aayado badan oo ay weheliyaan tiro axaadiis ah, kuwaas oo xaqiijinaya in Alle markii uu abuuray Aadam uu malaa'igta faray inay u sujuudaan Nebi Aadam calayhi salaam. Kadibna malaa'igtii dhammaan waxay u sujuudeen Nebi Aadam marka laga reebo Ibliis oo isagu ahayn malag, balse ahaa jin uu Eebbe sarraysiiyey sharafna u yeelay. Wuxuu yidhi, aniga waxaan ka sarreeyaa isaga oo uu la jeeday Nebi Aadam, waxaad iga abuurtay naar, Aadamna waxaad ka abuurtay dhoobo. Ibliis uu kibray islana weynaaday, wuxuuna galay dembigii ugu horreeyay ee lagu sameeyay samada. Kibirka shaydaanka iyo caasinimada uu sameeyey darteed, Alle waxa uu ku ciqaabay inuu jannada ka soo saaro. Shaydaanku si kibir leh ayaa uu u aqbalay ciqaabtii Alle, wuxuuna Alle ka baryay keliya in la siiyo fursad nolosha weligeed ah ilaa maalinta qiyaamaha. Eebba wuu aqbalay codsigiisii. Ibliisna waxa uu markaasi ballan qaaday in uu lumiyo awlaadda Nebi Aadam ilaa iyo qiyaamaha laga gaadhayo oo ay dhammaanayso nolosha adduunyadu. Alle waxa uu ballan ku qaaday in Ibliis iyo ciddii raacdaba uu cadaabta ka buuxin doono, kuwa toobadkeenka la yimaadana oo rabbigooda xaggiisa u soo laabtana loo dembi dhaafi doono. Nebi Aadam calayhi salaam waxa uu Ilaahay dejiyey jannada, waxa uu cunay midhaheedii, waxa uu cabbayey biyaheedii,
gudaheedii sida ku soo aroortay aayadda 118 ee suuradda Daha. Alle subxaanahu wa tacaala waxa uu ku yidhi nebi aadam jannada dhexdeeda kuma gaajoonaysid, kumana baahanaysid, kumana dhar la-aan doontid. Si rabbi ugu siyaadiye nimcada, alle ayaa qadaray in aadam calayhi salaam uu u abuuro lamaane wehelisa, nimcada rabbina la qaybsata. aadam calayhi salaam oo hurdo ayuu feedhiisa bidix eebbe ka abuuray Xaawo oo ah hooyada basharka. Markii uu soo toosay ayuu hareertiisa ku arkay, wuxuuna weydiiyey qofka ay tahay. waxayna ku tiri, waa ruux dumara oo waxa i abuuray Ilaahay si aan kuula noolaado oo aan nolosha kuula qaybsado. Alle subxaanahu wa tacaala ayaa deegaan uga dhigay jannada uduga leh, waxa uuna ku yidhi sida aad doontaan ugu noolaada kuna raaxaysta nimcadeeda, balse waxaa laga reebay hal geed oo ka mid ah geedaha jannada inaysan cunin. sidoo kale waxaa la faray inay iska ilaaliyaan Ibliis oo cadow u ah. halkaasi ayayna muddo badhaadho ugu noolaayeen. Ibliis ayaa u qalab qaatay sidii uu qorshihiisii ugu horreeyay ee hagardaamada ah ugu samayn lahaa Aadam iyo Xaawa. waxa uu Aadam u sheegay in uu cuno geedka laga reebay si uu u noqdo malag, kuma uusan dhihin caasi Ilaahay ee si xeeladaysan ayuu ugu yidhi, Ilaahay waxa uu idinka mamnuucay geedkan si aydaan u noqon malaa'ig. waxaad cuntaan oo keliya geedkan, haddii aad samaysaanna weligiin ma dhimanaysaan, jannadana waad ku waaraysaan. nebi aadam ma rumaysan Ibliis, waxa uuna xasuusnaa cadaawadiisii. laakiin Ibliis waxa uu mar kale adeegsaday qaab kale oo ah in uu u dhaarto kuna dhaarto magaca Ilaahay. Ibliis waxa uu u gudagalay in uu u dhaarto, wuxuuna ku yidhi nebi aadam, Ilaaha weyn ayaan ku dhaartay, waan idiin nasteexaynayaa. isla markaasba wuu rumaystay nebi aadam Ibliis, waxayna cuneen geedkii laga mamnuucay in ay u dhowaadaan oo ay cunaan. nebi aadam isma lahayn noole uu Ilaahay abuuray ayaa magaca Alle ugu dhaaranaya been. waxa uu ilaaway ballantii isaga iyo rabbigiisa u dhaxaysay, waxa uuna rumaystay cadowgiisii Ibliis. markii ay dhadhamiyeen ayaa waxa u muuqatay cawradoodii wayna kala yaaceen, waxayna isku dabooleen caleentii dhirta jannada. Alle subxaanahu wa tacaala waxa uu la hadlay nebi aadam iyo Xaawo, waxa uuna ku yidhi, miyaanan idinka reebin geedkan oo aanan idinkaga digin shaydaanka, oo aanan idin dhihin Ibliis waa idiin cadow. nebi aadam iyo Xaawiba way ka shaleeyeen dembiga ay galeen, waxa ayna baryeen rabbigooda inuu u dembi dhaafo. Alle subxaanahu wa tacaala uu ka aqbalay ducadoodii, wuuna u dembi dhaafay. laakiin waxa uu qadaray in aadam iyo Xaawo ay ka baxaan jannada una degtaan dhulka, halkaasina ay ku noolaadaan nolol ay la socoto xisaab, la dagaalanka nafta iyo shaydaanka. waxa ay sidoo kale sidaas ku waayeen nimcadii jannada oo ah meel aan lahayn gaajo iyo oon, daal iyo caajis, dhaxan iyo kulayl, xanuun iyo murugo toona. waxaana la keenay duni intaas iyo kasii badanba ku sifaysan. Alle subxaanahu wa tacaala waxa uu aadam ku karaameeyey inuu noqdo nebigii ugu horreeyay si uu awlaadiisa u faro caabudidda Alle subxaanahu wa tacaala oo keliya iyo la dagaalanka nafta iyo shaydaanka. Alle waxa uu qadaray in ay ubad dhalaan, kuwaasi oo noqon doona kuwii degi lahaa, camiri lahaana dhulka. sida uu qoray Ibnu Kasiir, aadam iyo Xaawi waxay isku dhaleen 40 caruur ah, 20 wiil iyo 20 gabdhood oo mataano ah. wiil iyo gabadhba isku mataano ayay ahaayeen, ismana guursan karin labada mataanaha ah. wiilku waxa uu guursanayaa gabadha da'da ku xigta ah oo aan ku mataano ahayn. xigmadda Ilaahay ayaana ahayd in faraca aadam ay bataan, waxaana dhacday in khilaaf dhex maro laba ka mid ah wiilasha nebi aadam oo lagu kala magacaabi jiray Qaabiil iyo Haabiil. Qaabiil ayaa diiday in gabadha walaashiis ee mataanta ah loo guuriyo Haabiil, maadaama mataantiisu ay ka qurux badnayd gabadha kale. si loo kala saaro, aabahood ayaa ku amray in ay sameeyaan qurbaan. Qaabiil waxa uu lahaa beer halka uu Haabiil lahaa xoolo. waxa uu Qaabiil soo qaaday dalagii ka soo go'ay beerta, Haabiilna waxa uu soo qaaday wuun weyn oo cayilan, waxayna dhigeen qurbaankii buur dusheeda. kii Alle ka aqbalo qurbaankiisa waxaa qaadaysa qurbaankiisa nuur iyo iftiin halka sare ka imanaya, wuxuuna Ilaahay ka aqbalay Haabiil. kadib markii Qaabiil arkay in Haabiil laga aqbalay ayaa wuxuu qaaday cadho iyo xaasidnimo. cadhadii waxa ay ku kaliftay in Qaabiil ugu hanjabo Haabiil in uu dilayo, waxaana dembiga ku riixayay Ibliis oo been iyo khiyaano u dhigay. ugu dambeyntii Qaabiil waxa uu dilay walaalkii Haabiil, waxaana taariikhda lagu wariyaa in uu soo qaaday dhagax weyn, kadibna Haabiil oo hurdo madaxa kaga dhuftay, sidaas ayuuna ku dhintay. dhacdadan ayaana noqotay fasahaadkii ugu horreeyay ee ka dhaca dhulka korkiisa. Haabiilna waxa uu noqday qofkii ugu horreeyay ee si dulmi ah loogu dilo dhulka korkiisa. Qaabiilna waxa uu dhabarka ku qaatay meydka walaalkiis, mana garanayn sida loo xabaalo noolaa. waxa uu dhabarka ku sitay muddo badan. maalintii dambe waxa uu Eebbe u soo diray tuke, tukahaasi oo qoday dhulka si uu u tuso sida loo aaso qofka meydka ah. sidaasi ayuuna u raacay tilmaantii tukaha una aasay walaalkii gacantiisa ku baxday.
maadaama uu Qaabiil ahaa qofkii ugu horreeyay ee dilka bilaabay. Waxa uu qayb ku leeyahay dilalka dhulka dushiisa ka dhaca ilaa iyo laga gaadhay maalinta qiyaame. Nebi Aadam waxa uu gaadhay cimri aad u dheer. Sheekh Al-Dabari sida uu ku qoray buuggiisa Taariikhda Ummadaha, Nebi Aadam waxa uu noolaa cimri gaadhaya 1000 sano, halka kutubta qaar ay dhigayaan in Nebi Aadam uu noolaa 950 sano. Markii uu dhintay Nebi Aadam, waxaa timid malaa'ig si ay u tusto ubadka Nebi Aadam qaabka loo dhaqo meydka loona kafo kadibna loo aaso, waxayna ku dhaheen ubadkii Nebi Aadam, wataa sunnadiinnii ee taas ku dhaqma. Sanad kadibna waxaa dhimatay xaaskiisii Xaawo, halka ay ku duugan yihiin doodo kala duwan ayaa laga soo wariyaa culimada taariikhda. Xaqiiqda iyo ogaanta saxda ahna Alle weyne ayaa garanaya. Nebi Aadam waxa uu baray ubadkiisii in ay Alle oo keliya caabudaan oo ay iska ilaaliyaan Ibliis iyo Shaydaanba, kuna tusaale qaataan aabbahood iyo hooyadood sida uu uga soo saaray jannadii. Dardaarankiisiina ilaa ay dunidu ka dhammaanayso wuu sii jirayaa.